koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dadweynahan hanuunina hasaawina danta u hagnaa miya wada dheerageega ooyeynas heesi war hadalkaa naga dhex geliniyo tiyaatarkii maanta ta ka dhacday waa la yaabay dadkii Soomaaliyeed iyo madaxdii dadka qaarkood ayaa isugu yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dawladda Mahdi Maxamed Guuleed maamulkii gobolka Banaadir oo gudoomiye injineeriyiisu horkacayo maareeyay cusbaayo tiyaatarka loo magacaabay iyo ku-xigeenadiisii iyo howladii waa bari dadweynihii gobolka qaar badan oo kamid ah gudoomiyeyaashii degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan baa isugu yimid xaflada kuwabeena widay xaflad xageey war waxaan muwaale hawl iska cuqabsa oo nadaafad ah baa laga qabtay in la dhisi doonana saansaanku waa u egyahay waana la hadal hayaa marka waxaan filayaa mar dhow in laga maqli doono dadweynahan hanuunina hasaawina danta u hagnaa war saas mee mar dhow maylika dheegi doona ilkoofadaha inoo dheerta halkan waxaad u timaadeen aan hagar lahaynin aawaad naga helaydaan may aragaayey langmagaajaylileeya abdiasiis goodah bara oo 70 gaara siyeetun iskooba 9 haagan kumbadiil meelaa ku foofi mooshii wada war markay madaxdaas dhan ay tageen askartii ciidankeed ma laga rameesh warniyo muwaalinta adiga yaa joogi kara meel askar joogin soo meesha xarsan laga maro warnimiya warliyaab le wadheegi gobolka lilay weeji oo ayaantumba go'doonka jarti niman masaakimin ee baahan ya maylare wal suuse ee badar ee oo aragday moordi haansay ka wax ka adeegdan ilii tireedo gaas niman dintaha aan jidkaan galeen reete maylay suubiyeena waliyo gararafsiyan iyone waliyo dudugsadan aweelen sagaal dameerna meela la ka baday horta gararaf meela la ka sii dad inoo ridaawen mar hore ogaynay walni sheegi dameera ka daranti dameer walhaas aynimiyow war shabaabku hadda ka hor markay bakaaraha joogeen waa kuwii amray in dameerka aan afka biraha loogu xiri karin marka waxaan idin weydiinayaa kuwa ay hadda bakool ku dileen xaquuq ma lahan miya kuwii hore waa kuwii dhahay xaquuqdooda ilaalinaynaa warniyo nin dad xaq dhowri waayey dameer buu xaq dhowraya war maysiina tababaro caalamiya soo baxaa la yidhi wiil hadda ka hor shabaab ka soo fakaday ayaa wuxuu ka mid noqday ciidan dawladda loo tababarahay tababarkii markii muddo la waday maalintii loo soo xiray nin ajnabiya ka qayb galay ninkii markuu soo istaagay oo askartii inuu u khudbeeyo u rabay wiilkii ayaa istaagay wuxuu yiri ninkan hadda ka hor tababar aan mucaskar ku soo qaatay ayuu noo soo xiray yiri Abu Qataata ayaa la lahay uu yiri haddana kabtan William uu la baxay uu yiri marka waa yaabane tababarayaal caalami miyaa jira wariyaa wax ma kala oodi waa qaldanta adiga war xagga markuu joogo waa Abu intana markuu joogo waa kabtan Maxamed Cabdullaahi Kooshin in la yiraahdo ayaanta waday sheeko la yiraahdo kala garan weynay waxa uu yiraahday shaqada urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika kala garan weynay shirkadaha DP World iyo Somali Oil and Gas kala garan weynay umuulisa dhaqameed iyo dhaqaatiir kala garan weynay milkiilayaasha warbaahinta iyo siyaasiyiinta kala garan weynay marka wixii dhan ay kala garan waayay maxaa la yaabaysan tababaraha war ana naftayda isaaga ha fadhi ku dirirkiyo inay siyaasiyiinta shal goradu waay ana lafteedu waxaan kala garan waayay dadka sakhraanka qamriga markay cabaan sakhraama iyo Donald Trump war aniga waxaan kala garan waayay kuwa qaraxyada ka digo iyo kuwa soo raran kala garan waayay war aniga naftayda waxaan kala garan waayay ciidanka Imaaraadka iyo kuwa militariga war meeshal goradu waayay baabuur kunsiinka dheer ka garahay lileeyo ino meel la too ilaa amiga ka kori ino muqdisho naftiyaba ka baahiya shal goradu waayay war waxaan kala garan waayay Soomaaliland inay IGAD ka mid tahay iyo Soomaaliya ka mid tahay war aniga waxaan kala garan waayay maxaabiista shabaab ee Puntland ka fakaday iyo ciidanka lagu bedelay war waxaan kala garan waayay dhalinyarada bajaajleyda askarta dilaysa iyo minishiibada cashuurta ka qaadanaysa war waxaan kala garan waayay laamiyada dhisnay ku dunsan war aniguna waxaan kala garan waayay kuwa Syria duqeynaya dadkii baabiye iyo kuwa xabada hal joojiyay waxaan u gurmeynay war anigu waxaan kala garan waayay qoladiina gulowdayna waaragtiin iyo fayowdiin wadamay waxaan arkayay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ra'iisul wasaare khayr la sawiran Imaaraadka marka waxaan kala garan waayay mucaaradka iyo muxaafidka baarlamaanka war meeshal goradu waayay maalin dhawayti may bahabadka is saaray oo islaamay
cabdiraxmaan odowa iyoonay ra'iisul wasaaraha galmudug sheekh shaakir marka olaad iyoonay heshiiska shal gorod waayana war waxaan kala garan waayey ciidan aqari ciidan adduunyo war wasiirka wasaaradda maaliyadda wuxuu yidhi ganacsatadii waa heshiinay ganacsataduna waxay yidhaahdeen wadahadalkii aan la lahayn wasaaradda maaliyadda waa fashilmo marka waxaan kala garan lahay fashilka iyo heshiiska war anina meeshal gorod waayey ma dib bugdhiido qarahdii madaxda dawladda ma eraan waa fashilinay yeeraayan gobolkana dadka dhamaade ma duun fashilinay iyo dadka dhamaade